أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برواقع ندين رجينيا ميل والبوات شوكتان وفي عبسية ما أنت في دي هنوحى يمكن في إن كسو شو فيديو عن بيشن هرانتي دي سو سمي أو كساب سنة جور إن مدي الصوماليين دون أفير صدايو دق وحليرة دق وحليرة سنوات كانتي إن جور كيس ومدي الصوماليين دون بربرو وايو حويا نمانكي حياة بدن باسكال خلدماي قاركين وحسكالكين خلدماي شاكايسيجي قبلها لا شاكايسان جيري حاساوها وحيلولن جيري iyo guurkii oo tii alla yara sheekaysataanba waa mihirnaysaan hadhowna deetana isla markiiba waa la kala boodaya qaar waxay noqdeen group dan uun raadinaya oo maaragtay qofay ku meel gaadhaan ama qofay ku dhoofaan ama qofay la degaan ama maaragtay oo dee meel yaro dugsoon ay sii saxdaan gabdhuhu sidaa maaha gabdhuhu waxay raadinayaan guur wanaagsan oo qurux badan qofay isfahmaan wada sheekaystaan asxaab noqdaan qalbiga iyo wadnuhuba ay midoobaan dabadeetna ay nolol wada qaybsadaan hadhow baa loonaya dumarka khiyaali ku nool no ragga khiyaali ku nool serious ba ma tiidina waajibkii ilaahay subxaanahu wa tacaala idin farayba maba fahansanidine gabdhihii baa ku boodaysaan hadhowna waa ka boodaysaan qorshe ma jiro maxaynu rabnaa sidaynu u noolaanaynaa haddii ilaahayna siiyo imisaynu uba doonaynaa hadda aynu jeclaan lahayn halkee baynu degaynaa keeneebaa reerka maaragtay weliba dee ninkaa mas-uuliyaddu saaran tahay ee waxba maaha waqtigan lagu jiro rag iyo dumarku waa wada shaqaystaane keeneebaa dee maaragtay reerka mas-uuliyadda de weyn ee banaanka laga soo shaqeynaya qaadaya waa la isweydiin karaa waxaas dhib ma laha waqtigan lagu jiro laakiin dadku waa in ay mabda wada leeyihiin isku meel ku socdaan isku wax rabaan laakiin dadku waa in ay mabda wada leeyihiin isku meel ku socdaan isku wax rabaan easy come easy go maaha waxa guurkeeni baabiyay Soomaalida waa waxa gabdhihii yaraa iyagoon 20 gaadhin laba maraya oo maaragtay dee ciyaar la iskaga furayo intaydan dadka la xidhiidhin ba horta ogaada waxa rabtaan inamada Soomaaliyeed oo be serious qof sidee baan doonayaa dunta qofka dun sidee baan rabaa waa maxay shanta wax ee aanad absolutely haba yaraatee qof ugu dul qaadan karin duntaada ka sheekay adigu bini'aadanimadaada iyo akhlaaqdaada ka sheekay himilada aad doonayso inaad tiigsato ka sheekay marka kasii fikir haddeer shaqsiga aad doonayso noloshaada inaad la qaybsato iyo waxyaabaha aad uga baahan tahay iyo waxyaabaha aad adigu maaragtay huraysid and it's very 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 important waa lagama maarmaan in ay jiraan shuruudo ku xidha iyo kuwo aanad adigu la-aantood dee noolaan karin oo qof kula noolaan karin marka waxyaabahaasoo dhan ka fikira baan idin odhan lahaa ogowna haddaad ilaaliso sharaftaada iyo akhlaaqdaada iyo miisaankaaga waad helaysaa waxaad doonayso no doubt waayo anigu waxaan garanayaa markii aan dee dhalinyarada ahaa ee aan weli aanan guursan confuse baan ahaa waxaan doonayaba ma garanaynba confusekii un baan ku guursaday confusekii un baan kaga booday maanta I know exactly waxaan rabo aan doonayo waan garanayaa caadiga ma saarna waa sababta aan ilaa hadeer aanan u guursan dib u guursan
waayo exactly wixii aan doonayay baan garanayaa mana hayo wax badanna maaha waa dun bay u badan yihiin dunta qofka karakterka waxa kaloo dhan adduunkana waa iska maalmo waa laga tegayaa marka walaalayaal aad iyo aad uga fikira arrintaa bal fadhiista oo qalniya warqadintaa qaadataan qora maaragtay nolosha waxaa ka rabtaan qofkaad doonaysaan noloshiina inaad la qaybsataan waxaad uga baahan tihiin waxaasoo dhan qor qofun ha iska weydiisan ilaahay qofaan guursado ama be specific marka maanta waxaan idinkaga tegayaa maanta qof baan la hadlayo nugaal iyo waxbaa soo xusuustay marka hees nugaali ku jirto baan idinkaga tegayaa arrintana I think yara waafaqsan sahra axmed ilaa ku naxariisay axmed moogaba way qaadaan heestan waatan nafku jecel adduunyada baawacan wax nololiyo nabad lala wadaago nimca lagula wareeg ma nugliye kalgacalka naariyo ka daraa nolol markuu nudayga ka galo nabar weeye halise eetaa nabdiga geli oo soo noqnoqoshada igamuudina casnimo anna haddiyan ku naawili naqbaala dhowra nasiibku ha isku keensimo qofkaad doonaysaan ilaahay idinkii qof wanaagsan oo khayr qaba ood isku waartaan noloshan yara gaaban ood saaxiib ayaan idinku duceeyay khayr baan isku nahay